Caalamka oo dhan waxa isha lagu hayaa ilbiriqsi kasta iyo mar kasta saacad kasta inuu bilaabmi karo duulaan cir iyo dhul ah oo uu qaado Ruushku si uu u qabsado gebi ahaanba dalka Ukraine. Mar walba waxay indhaha caalamku aad ugu sii jeedaan xuduudda Ukraine iyo Ruushku wadaagaan oo ay ku sugan yihiin boqolaal kun oo labada dhinac ah, halka oo ay ka dhici karaan iska horimaad isku bedeli kara in lagu riiqmo. Maalin walba waa xaalad laga sii dayrinayo waddanka Ukraine iyo Ruushka in la soo weeraro Ukraine. Dhinaca kale Ukraine ayaa dood kale leh oo leh dagaalka 8 sano ayaan u diyaar garoobaynay. Haddaba halkee ay maraysaa xaaladda diblomaasiyadda iyo in la dejiyo ee ay reer galbeedku u tafeexayteen sidii ay xaaladda u qaboojin lahaayeen waa Ukraine iyo Ruushka. Laba dal oo dhaqan ahaan, luqad ahaan iyo arrimo kale oo dhinaca bulshada ah wadaaga waa Ukraine iyo Ruushka. Ayay ku dhex milmeen wadamada reer galbeedku tan iyo bishii December ilaa iyo November ee sanadkii hore. Waxay Mareykanka iyo xulufadiisu ku baaqayeen in Ukraine ay qarka u saaran tahay in la qabsado, iyada oo ay sheegeen in bartilmaameedka koowaad ee Ruushku ay tahay magaalada Kiev ee caasimadda waddankaas, maadaama ay caasimadda tahay haddii halkaasi la qabsado ama la burburiyo oo hub loo adeegsado, waa hubaal ay leeyihiin in ay kala daadan doonto nidaamka kale ee dowladeed ee Ukraine. Balse gudaha Ukraine waxaa ka socda dadaal ka dhan ah sidii la iskaga caabin lahaa haddii ay gulufka soo qaadaan ciidamada xuduudda la soo dhoobay ee waddanka Ruushka. Sirdoonka reer galbeedka ayaa bilo ka hor xaqiijiyay in 100,000 oo askari in ka badan xuduudda la dhoobay, iyada oo lagu markaasi taxay hubka qaybihiisa kala duwan. Taktikada ciidan uu qalabkiisu u dhammaystiran yahay. Ciidamada Ruushka ayaa sameynayay maalmihii ugu dambeysay dowladda military oo ay doonayaan in markaasi ay u talagaleen jimicsi waxa uu yaqaanaan super powerka. Ciidamada militariga ee Ruushku waxay sidoo kale joogaan xuduudda dhinaca Belarus oo xuduud la leh dalkaasi Ukraine. Gobol lagu magacaabo Crimea oo ku yaala bariga Ukraine 2014 ayaa Ukraine hal mar indhaha la madoobeeyay lana wareegay. Ruushka ayaa taageerayay koox gooni-goosad ah oo la dhungashay ku noqotay dowladda Ukraine, sidaasna lagula wareegay gobolkaas oo dhan. Hadallada ka soo yeedhaya wadamada reer galbeedka ee ku aadan in la soo weerarayo Ukraine oo ay kala baxeen diblomaasiyiintii iyo sidoo kale muwaadiniintii wadamadaasi ka joogay waddanka Ukraine, iyaga oo ku doodaya in haddii ay xaaladdu qaraaraato aan la soo badbaadin doonin muwaadiniintooda, sidaas awgeedna ay ka soo baxaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu leeyahay tan waa cabsigelin in lagu hayo shacabkiisa, balse waxay leeyihiin 8 sano ayaan diyaar garoobaynay kadib markii gulufkii 2014 uu u noqday cashir lama ilaawaan ah. Haddaba diyaar garowga Ukraine waxay leeyihiin iyaguna 100,000 oo askari in ka badan iyo boqolaal kun oo kale oo booliis ayaan taxnay xuduudda aan la wadaagno Ruushka. Diyaar ayaan u nahay ayuu leeyahay madaxweynaha Ukraine in dagaal nagu soo qaado aan iska difaacno Ruushka. Waxayna leeyihiin cadowgayga koowaad waxa uu ku farxaya ayaa ah in la nacabsi gelinayo oo aan waxtar la noo yeelanaynin. Dhinaca kale waxa hubaala in ciidan reer galbeed ah ama Mareykan ama reer Yurub uusan ka dagaalami doonin abidkii waddanka Ukraine. Maxaa yeelay labadan dal ee Ukraine iyo Ruushku hore hal dal ayay u hayeen oo la odhan jiray Midowgii Sofiyeeti, ka horna boqortooyo dhulkaas ka arrimin jirtay oo Raashiyaanku ay lahaayeen ay dhammaantood hoos wada tegi jireen. Waana waxa hamiga ugu weyn ee Vladimir Putin in uu dib u hanto maamuuskii ay Midowgii Sofiyeeti iyo boqortooyadii ka horreysay dunida ku lahaayeen in uu dib u kabsado. Hanjabaadda reer galbeedku waxay ku soo ururtay in ay kaliya saari doonaan cunaqabatayn ba'an. Haddaba cunaqabatayntaasi xagee ay ka imanaysaa? Waxaa laga filayaa inay ka iman doonto dhuun gaasta qaada oo ka timaada Ruushka oo geysa wadamada galbeedka Yurub sida Jarmalka oo pipeline ah, kaas oo lafdhabar u ah Ruushka oo dhaqaale badan uu ka soo galo iyo dhinacyo kale oo kala duwan. Waxa ugu weyn ee ka walwalsan yahay Vladimir Putin-ka Ruushka ayaa ah in uu arkayo dalal uu xuduud la wadaago oo ku biiraya NATO. Isbahaysigaasi oo noqday mid khatar ku ah maadaama asalkiisaba loo aas-aasay waddankaasi Midowgii Sofiyeeti sidii looga hortagi lahaa ee ay iskaga difaaci lahaayeen wadamada reer galbeedku. Kadib waxaa bilaabantay in wadamada Poland ay ka mid noqdaan NATO oo xuduud la leh iyaduna Ukraine. Waana hubaal ama suurtagal ay ahaan lahayd in ay Ukraine ka mid noqoto, laakiin haatan waxay leedahay
dan nooma aha inaan Ukraine ay ka mid noqoto isbahaysiga NATO. Poland Maraykanka ayay xulafo dhow la tahay, sidoo kalena waa qayb ka ah NATO. wuxuu halkaasi Maraykanku u diray 3,000 oo askari, in ka badan ayaa horey u sii joogay, halka hubna lagu daabilayo sidii loo xoojin lahaa ay leeyihiin xulafada bariga ee markaasi isbahaysiga NATO, sidii looga hortagi lahaa haddii uu dagaalku faraha ka baxo. haddaba khatarta ugu weyn ayaa dareemi doona. 1. Bariga Yurub wuxuu la kulmi doonaa mawjado muhaajiriin iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo dagaalka ah, waxaana suurtagalaba inuu sii ballaadho uu gaadho Yurub, isla markaana la xakameyn waayo oo uu noqdo dagaal ballaadhan. diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa labada magaalo ee caasimadda Kiev ee Ukraine iyo sidoo kale Moscow gaalaabaxayay sidii ay isku dayi lahaayeen in diblomaasiyaddu noqoto maskaxda kaliya ee la adeegsado ee aan la adeegsan tallaabo military. dhinacyo kala duwan sida madaxweynaha Maraykanka khadadka telefoonka ayaa aad lagula wada hadlayay iyo dhigiisa Ruushka. sidoo kale Ingiriiska ayaa sheegaya inay xaaladani la mid tahay kahor intii uusan bilaabmin dagaalkii labaad ee dunida ee naasiyiintii Jarmalka lagaga sasabayay ama lagu raali gelinayay in ay dagaal ay ka baaqsadaan la galo, kadibna ay markaasi dagaalkii u bilaabay, taas oo haatan uu barbardhig kula sameeyay mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee waddankaasi Ingiriiska. dabcan aad ayaa looga baqayaa gudaha Ukraine iyo Ruushkaba, iyadoo laga baqaya dagaalku inuu noqdo mid ballaadhan oo aan markaasi wax fiican laga dhaxlin. waxaana jira dhaqaale xumo gudaha Ruushka ah iyo sidoo kale sixir barar ka jira dalkaasi gudihiisa oo cabsi gelinaya shacabka Ruushyaanka ah oo ay doonayaan in lagaga baaqsado dagaal dhaca. balse dhinaca kale reer galbeedka iyo cabsida ah in uu mar walba Ruushku hubkiisa soo saari doono waddanka Ukraine. haddaba laba dal oo aan isku mid ahayn ama markaasi aan la isbarbar dhigi karin waa Ruushka iyo waddanka Ukraine. maxaa sababay in uu dagaalku bilaabmo? dagaal dabcan bilaabmay ma jiro, waxaana socda dagaal qabow oo ay markaasi dalalku ku xodxodanayaan in ay qacan sarreyn ku yeeshaan danahooda gaarka. Maraykanku buunbuunida iyo sidoo kale in uu mar walba uu xaaladda ka dayriyo wuxuu kala baxay waddanka Ukraine ama markaasi uu geeyay dadkiisa inuu markaasi ugu baaqo muwaadiniintiisa ku sugan waddanka Ukraine ay ka baxaan inta ay goor tahay, haddii kale markay cir iyo dhul isqabsadaan aan cidi soo badbaadin doonin. waa sida ay hadalka u dhigayaan reer galbeedku, in ay ka daabulayaan dadka muwaadiniintooda inay iskaga soo baxaan waddanka Ukraine, halka Ukraine ay leedahay arrinkan waa cabsigelin lagu hayo waddankooda. maxaa yeelay waxay leeyihiin dagaalka hore ayaan ugu diyaar garownay markii Crimea 2014 uu qabsaday Ruushku,